kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah gobolka Tigray ee dalka Itoobiya oo ku adkaysanaya inuu doorasho qabto maalinta Arbacada ee toddobaadkan, laakiin qorshahaasi waxaa ka hor yimid aqalka sare Itoobiya oo sheegay in aysan dastuur ahayn. magaalada Melbourne ee dalka Australia Soomaalidu degto la kordhiyay xayiraadii saarnayd ee lagu xakameynayay xanuunka coronavirus. qodobadaas iyo sheekooyin kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta. aan ku bilownay magaalada Birmingham ee wadanka Ingiriiska oo kamid ah meelaha ay dadka muslimiinta ahi ku badan yihiin ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa ka dhacay weerar loo adeegsaday mindiyo. weeraradaasi waxaa ku dhintay hal qof halka ugu yaraan 7 kalena ay ku dhaawacmeen. booliisku weli ma aanay xaqiijin cidda weerarkaasi geysatay, asaatee waxay gacanta ku soo dhigeen hal qof oo kamid ah kuwii weerarka geystay. aqalka sare ee baarlamaanka wadanka Itoobiya ayaa waxa uu go'aamiyay qorshaha gobolka Tigray ay ku doonayaan in ay ku samaystaan doorasho 9 bisha September ay yihiin kuwa aan dastuurka waafaqsanayn. arrintan ayaa dhinaca kale waxaa laga yaabaa inay soo dadejin karto iska hor imaad ka dhex dhaca dowladda dhexe iyo gobolka Tigray oo ah qowmiyad aad awood badan ugu leh wadankaasi. golaha federaalka uu go'aamiyay khilaafaadka dhinaca dastuurka ayaa si aqlabiyad leh ugu dhawaaqay in codbixinta baarlamaanka gobolkaasi iyo jagooyinka kaleba yihiin kuwa aan dastuurka waafaqsanayn, sidaasi darteedna ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin. Gitajow Reda oo ah hafayeenka jabhadda Tigray People's Liberation Front oo loo soo gaabiyo TPLF ee maamusha gobolka waqooyiga ee Tigray ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay in codbixintu ay dhici doonto inkastoo ay cadaadis kala kulmayaan dowladda dhexe. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa horseeday furfurnaan dhanka xorriyadda siyaasadda iyo dhaqaalaha tan iyo markii uu xafiiska la wareegay sanadkii 2018 iyadoo Itoobiya ay kamid ahayd wadamada sida adag loo xakameeyo ee qaaradda Afrika. laakiin dib u habeyntaasi waxa ay sidoo kale keentay xiisad qowmiyadeed iyo mararka qaarkood rabshado qarx maadaama ay siyaasiyiinta gobolada ay isticmaalayaan awoodooda ay kaga soo horjeedaan dowladda dhexe. garoonka diyaaradaha ee Dallas International Airport ee ku yaala duleedka magaalada Washington ayaa waxaa lagu soo qabtay nin Soomaali oo dacwad loo haysto. ninkaasi oo isku dayay inuu ka baxsado wadanka Mareykanka isla markaasina ku sii jeeday Soomaaliya. saraakiisha custom-ka ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa ninkan qabtay isagoo doonayay inuu raaco diyaarad u socotay dalka Turkiga kadibna u sii gudbi lahaa Soomaaliya. ninkana Soomaaliga oo lagu magacaabo Saciid Shariif Maye oo reer Minneapolis ayaa loo haystaa dacwad la xiriirta shil baabuur oo ka dhacay bishii hore gobolka Minnesota kaasi uu ku dhintay Idris Ali Yusuf. Saciid Shariif Maye ayaa lagu eedeeyay inuu baabuur ku dhuftay ninka dhintay ee Idris oo isagu xilligaasi baabuurkiisa galayay. magaalada Melbourne ee gobolka Victoria ee wadanka Australia oo kamid ah meelaha ay ku badan yihiin dadka Soomaalida ayaa waxaa 2 toddobaad lagu kordhiyay xayiraadii cudurka coronavirus lagu xakameynayay ee lagu soo rogay gobolkaasi bilowgii bishii hore. inkastoo cudurka COVID-19 uu hoos u dhacay heerkiisu, haddana xayiraadu haatan waxay noqotay mid mar kale ay dowladdu soo rogtay. wariyaheena Ibrahim Cumar Baaf oo ku sugan magaalada Melbourne ayaa isagu faahfaahinta warkaasi inoo haya. Ibrahim hay maxamudow hadalkan maanta uu jeediyay madaxa gobolka Victoria Daniel Andrew wuxuu ku dhawaaqay in xayiraada iyo bandowga saaran gobolka Victoria iyo magaalada tan Melbourne la kordhiyay muddo 2 toddobaad ah. waxna ay bilaabanaysaa 13 bishan aynu ku jirno September axadda soo aadana. dabcan waxay axadda soo socoto in xayiraadahan la qaado. waxyaabaha uu khafiifiyay waxaa kamid ah bandowgii 8 habeenimo oo bilaabanaya oo hadda aynu ku jirno ayaa waxaa laga dhigay inuu bilaawdo bandowga 9 fiidnimo ilaa 5 aroornimo. waxaa sidoo kale uu khafiifiyay halkii saac dadku ay jimicsi ku sameeyeen banaanka. maalintii waxaa loo ogolaa 1 saac, hadda wuxuu ogolaaday 2 saac in qofka uu jimicsi dibadda uu ku sameyn karo. waxaa weli meeshoodii taagan 5 kilomitir qofka inuusan dhaafi karin halka uu kaga degan yahay. waxaa sidoo kale xirnaan doona dhammaan ganacsiyada marka laga reebo kuwa daruuriga ah sida maqaaxidaha iyo kafeeyada iyana lagama cuntayn karo
waa un qaadasho dabcan Soomaalida ugu badan ee dalkan Australia ku noolna waxa ay degayiin gobolkan Victoria gaar ahaan magaalada tan Melbourne saameyn weyn bay ku yeelanaysaa arintan waayo waxaan ognahay Soomaalidu inay yihiin qoysas aad u ballaaran oo soo booqda oo family waaweyn halkan jooga hooyo aabe iyo caruur marka arinta hadda booqashadu cidina isma soo booqan karto masaajidu way xiran yihiin waa sidoodii waxa uu asteeyay marka 28 bisha September in xayiraada la qaadi doono laakiin waxa uu dul dhigay shuruudaas oo ah waa in uu cudurka uu soo ritaa inta u dhaxaysa 30 ilaa 50 hadii 50 qof ka badan 28 September uu helana waa 2 toddobaad hor leh ayaa xayiraadu sii noqonaysa taas oo micnaheedu ay tahay in bisha October bartamaheeda la galo si kastaba ahaatee road mapka uu dejiyay ama qariirada uu jaangooyay qaabka uu rabo in xayiraadaha loo qaado waxa uu ku asteeyay ilaa iyo 23 bisha November ee soo aadan Soomaalida ugu badan iyo dadka kale ajaanibta ugu badan wadankan guud ahaanna waxay ku nool yihiin gobolkan Victoria gaar ahaan magaalada Melbourne Maxamuud waayahay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Cumar Baafo oo ku sugan magaalada Melbourne ee wadanka Australia ugu dambeyntiina xeeladaha gobolka New York ayaa waxa ay ku dhaqaaqday tallaabo ay ku sameynayso guddi xeerbeegti ah si baaritaan loogu sameeyo dilkii Daniel Brood oo ahaa nin madow ah ayaa dhintay kadib markii ay horaantii sanadkan booliiska magaalada Rochester ay dabooleen wajigiisa ayna dhulka dhigeen dhimashadiisa ayaa dhalisay mudaharaadyo habeen walba kuwaasi oo lagu dalbanayo in dib u habeyn lagu sameeyo habka ay booliisku u shaqeeyaan xeeladaha guud Letitia James ayaa sabtidii sheegtay in xeerbeegtidu ay qayb ka noqon doonaan baaritaan dhameystiran haatan haddii aan jaleeco wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa waxa ay soo xerogelisay ciyaaryahanka xulka qaranka wadanka Ingiriiska Callum Wilson ciyaaryahankan ayaa waxa uu kamid ahaa xidigihii sanadkan kooxdoodu ay ku noqotay ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska waxa uu xidigani muddo dheer u dheelayay kooxda kubadda cagta FC Bournemouth taasi oo kamid noqonaysa sanadkan ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska waxay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United xidigani kula soo wareegtay lacag gaaraysa 20 milyan oo ganiga Ingiriiska ciyaaryahankan 28 jirka ah waxa uu xulka qaranka ee wadanka Ingiriiska u ciyaaray 4 kulan isla markaasina waxa uu dhaliyay 1 gool inkastoo kooxdiisii kubadda cagta FC Bournemouth uu ciyaaray 184 kulan isla markaasina uu dhaliyay 67 gool ciyaaryahankan ayaa waxa kooxda FC Bournemouth ay sanadkii 2014 ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee Coventry City waxaana ugu tilmaamay xidigan inuu yahay mid kamid ah ciyaaryahanada ka ciyaara afka hore ee wadanka Ingiriiska ugu wanaagsan taasina waxa la leeyahay waxa ay wax weyn ka bedeli doontaa weerarka kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo dhinaca gool dhalinta aad iyo aad ugu liitay dhinaca ciyaaraha kubadda koleygana waxa meel xiiso leh maraya ciyaaraha isreereebka ee koobka NBA ee wadanka Mareykanka waxa beenkii xalay la ciyaaray 2 kulan oo aad u xiiso badan kulanka koowaad waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda koleyga ee Toronto iyo Boston Celtics waxa xusid mudan in 4 lugood oo labadan kooxood ciyaareen labadii lugood oo hore ay badisay kooxda Boston dadkuna ay lahaayeen waa la xaaqi doonaa Toronto laakiin taasi ma aanay dhicin oo kulankii saddexaad si la yaab leh ay kooxda Toronto ku soo badisay habeenkii xalay ahana waxa ay muujisay awood ay kaga adkaatay kooxda Boston Celtics 3 kulan ayaa dhiman oo laba kamid ah cidii badisay ay soo gudbi doonto kooxda LA Clippers oo sanadkan loo saadaalinayay koobka NBA-da inay ku guuleysanayso ayaa habeenkii xalay waxa jilaafo u dhigtay kooxda kubadda koleyga ee Denver Nuggets labadan kooxood oo min hal lug ciyaaray ayaa lugtii koowaad lagu durduriyay kooxda Denver Nuggets laakiin xalayto iyada dhankeeda ku durdurisay kooxda Clippers waxayna muujisay awood ay adag tahay in kooxdu si sahal ah lagaga badin karo daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii qubanaha maanta oo markale ka imaanay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota inta aynu markale dib u kulmi doono waa mascada iyo dhammaan baabada qubanaha idile sida iyo nooli kulanta